Soomaaliya oo ka mid ah dalalka xadgudubyada lagu geysto wariyaasha isla markaana ka mid ah meelaha ugu adag ee wariye uu ka shaqeeyo ayaa ururada iyo hay'adaha saxaafadda u dhaqdhaqaaqa waxa ay soo bandhigeen buug lagu soo aruuriyay sida saxafiga ugu taxadiri karo khataraha. Buuggaasi oo lagu magac daray Tusaha Badqabka Saxafiga Soomaaliyeed kaasi oo soo diyaariyay ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB. Maxamed Daahir Caysane gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Puntland ayaan weydiiyey sababaha ku kalifay inay diyaariyaan buuggaasi saxafiyiinta macluumaadka ka siinaya badqabka wariyaha. marka Cabdicasiis walaal waxa ka soo baxday shaqooyinka la kala qaybsaday ma buuggan ku soo aadamay inuu la sameeyo oo baahi loo qabo ay jirto buug in la helo ay talaabooyinkii badqabka ay raaci lahayn wariyaashu in la helo muddo badan bay nagu qaadatay khubaro badan baan la fariisanay ururada warbaahinta dalka ka jira dhamaantood af Soomaaligiisa markii la soo dhameeyay in adana waxa weeye isagoo la socda maxaa la yiraahdaa buugga caalamiga ee badqabka ee UNESCO samayso oo journalistayaasha loogu talagalay annagoo isaguna wax badan ka eegayna kadibna af Soomaaligiisa muddo kale nagu qaadatay inaanu saxano oo aanu fiirino khubaro kale luqadda adana loo geeyo alxamdulillah rabbil caalamiin markii ugu dambeysay maanta Ilaahay noo suurageliyay inaanu Muqdisho nimaadno buuggii ku soo bandhigno oo waxa ay noqonaysaa insha Allah taala waxtar u noqonaysa waa arin waxtar u noqonaysa wariyaasha Soomaaliyeed oo duruufo adag ku shaqeeya goobo coladeed ka shaqeeya iyo waxa weeye waxyeelo iyo dhibto ay soo gaarto inay raacaan maxaa la yiraahdaa talaabooyinka buuggan ku qoran at least sidii bal ay u yareen lahaayeen ama waxa weeye ama ay uga hortagi lahaayeen dhibaatooyinka ku dhaca. xubno ka socday golaha shacabka baarlamaanka wasaaradda warfaafinta dowladda ururada bulshada rayidka suxufiyiinta iyo hay'adaha u dhaqdhaqaaqa arrimaha saxaafadda ayaa dhankooda soo dhaweeyay in saxafiyiinta Soomaaliyeed loo helo macluumaad ay kaga fiijignaan karaan khataraha oo isku dayay inuu ku camal falo. Marka waxaan leeyahay hal isku dayay in lagu camal falo suxufiyiin badan oo Soomaaliyeed ama dhaawacmay ama curyaana ama geeriyooday xaalado la mid ah xaaladaha meeshan ku yaala ama ku qoran ay la kulmeen oo dayac ah laga yaabo inay ahayd in laga hortagi karay waa qadar subxaanahu wa ta'aala maarata Allah xaqiisa ka ahaaday wixii qofka ku dhacay laakiin dadaalku waa furan yahay marka lagu yiraahdo ka taxadir meesha gaarigaaga dhigayso inta badan buuggan waa badqabka suxufiyiinta inta badan suxufiyiinta waa kuwa mar waliba halista ka fogaada oo inta badan meelaha halista jirta ayaga ay u ordaan isla markaas sidii ayaga iskugu badbaadin lahaayeen arintaasi maanta buuggan la soo bandhigay faa'iido fara badan aan ugu jirta hadaan nahay wariyaasha deegaanada Koonfur Galbeed ka howlgala. Xildhibaan Khalid Macow oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka isla markaana ah gudoomiyaha guddiga saxafiyiinta ayaa ugu dambeyntii ka hadlay madasha lagu soo bandhigay buugga Tusaha Badqabka Saxafiga Soomaaliyeed kaasi oo ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB uu soo diyaariyay isla markaana soo saaritiisa ay ka qayb galaan hay'ado kala duwan oo saxaafadda ka shaqeeya waxaana loo qeybiyay buuggaasi wariyaal matalayay gobolada dalka Soomaaliya. aniga waxaan u arkaa nuxurka uu xambaarsan yahay aad iyo aad u ballaaran yahay sidaa darteed akhyaartii ka soo shaqeysay waxay mudan yihiin ammaan maartay iyo bogaadin maartay ay mudan yihiin waxaan in leenahay magaca saxafiyiinta iyo saxaafadda waxaan waa mahadsantahay. Cabdicasiis Ibraahim Axmed TV Universal magaalada Muqdisho.